Assalaamu calaykum. Waa Mubaarak Maxamuud Saleebaan iyo channelkeennii Tayadoon Media. Fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar, sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto casharada dambe ee aanu soo gelin doono, annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. Maanta waxaanu ka hadlaynaa dhalashadii dowladdii Cusmaaniyiinta. Dowladdii Cusmaaniyiinta 1299 ilaa 1924 waxay ahaayeen dowlad Islaamiya. Dowladdaas oo u aasaasay Cismaankii koowaad. Dowladda boqortooyadani waxay xukuntay dhul aad u ballaadhan, waxaana ka mid ahaa Aasiya sida Bariga Dhexe, waddamada maanta loo yaqaano, sidoo kale Geeska Afrika iyo meelo badan oo ka mid ah Yurub. boqortooyadii dowladda Cusmaaniyiinta waxaa saldhigeeda ugu weyn ahaa magaalada Istanbul ee maanta ka tirsan waddanka Turkiga. Haddaba waa meel alla wax ka wado sannadkii 1258 ee miilaadiga kuna beegan sannadkii 656 ee hijriga, markii ay Tataarkii uu Hulaako hogaaminayay Baqdaad qabsadeen oo dad iyo duunyaba baabi'iyeen, ayna dumiyeen dowladdii Cabbaasiyiinta ee muddada dheer isku xidhaysay muslimiintii caalamka oo dhan, sidoo kalena ahayd dowladdoodii dhexe. Isla sannadkaas ayaa waxaa Aasiyada yar, gaar ahaana magaalada Sogod oo ah meel laga maamulo magaalada weyn ee Bani Shahiir, waxaa ku dhashay Cismaan bin Ardaqrol oo ahaa ninka ay ku abtirsato dowladda Cusmaaniyiintu oo isagu aasaasay. Haddaba dowladda Cusmaaniyiinta oo mar labaad soo celisay haybaddii Islaamka, taasoo muslimiinta qarniyo badan hogaaminaysay. Turkiga oo asal ahaan ka soo hayaamay gobolka Sikiyaan maanta loo yaqaano, oo Shiinuhu xoogga ku haysto, muslimiintuna ay u yaqaaneen dhulka Turkiga bari ama Turkistaan Ashriiqiya. 3 hayaan bay Turkigu sameeyeen inta la xasuusto. Hayaankii u horreeyey waxaa sameeyey qolada maanta loo yaqaano Bulgaariya, kuwaasoo Islaamka ka hor soo hayaamay oo la soo kulmay diinta Kiristaanka oo sidaas Kiristaan ku noqday. Labada qolo ee kale waxay soo islaameen markii ay diinta Islaamku gaadhay kadib, oo waa qoladii la odhan jiray Salaajiqada oo iyagana aan taariikh qaara kaga hadalay, iyo Cusmaaniyiinta oo ahaa duulkii hana qaaday ee khilaafada Islaamka wax badan hayay. Gobolkii ay ka soo hayaameen Turkigu laga soo bilaabo bari ilaa Bulgaariya iyo Istanbul oo Turkiga dhinaciisa galbeed ku taalla, quruumaha degan badanaa waa dad Turki ah, sida dowladaha loo yaqaano Usbekistan, Turkmanistan, Taajikistan iyo kuwo kale oo jiidaas isku xidha iyagu degan. Cusmaaniyiintu waxay asal ahaan ka soo jeedaan qabiilada Kay oo ka soo jeeda Turkiyiinta Ogos, waxayna qayb ka ahaayeen dowladdii beelaha Turkigu sameeyeen iyagoo hayaan ka soo bilaabay bartamaha Aasiya ee bariga xiga qarnigii 10aad ee miilaadiga, kadibna waxay afka saareen dhinaca galbeedka. Walaalahoodii Turkiga Salaajiqada loo yiqiin baa iyaga ka sii horeeyey oo iyagu markaas deganaa dhulka Beershiya, iyagoo bilowgii qarnigii 11aadna bilaabay inay u sii hayaamaan jasiirad lamoodda Anatolia ee maanta dowladda Turkigu degan tahay. Haddaba bilowgii qarnigii 11aad ayuu Sulaymaan Shaah oo duqbeelaad ahaa, kaasoo xukumayay beesha Kay, hayaan soo geliyey isagoo ka soo raray dhulkii Turkigu asalka u ahaa oo ku yaalla xadka Shiinaha. Sulaymaan Shaah oo Cismaankii koowaad awowgii ahaa wuxuu ku haftay webiga Furaad markii uu ka tallaabayay, wuxuuna maanta ku xabaalan yahay meel dhulka Suuriya ka mid ah. Haddaba Sulaymaan Shaah markii uu halkaas ku geeriyooday, labadiisii wiil way iskhilaafeen oo nin wuxuu ku taliyey inay dhulkoodii hooyo u laabtaan, kii kalena wuxuu ku adkaystay hayaankii aabbihii bilaabay inuu sii wadayo ilaa uu ka gaadho meeshii uu higsanayay. Ninka go'aankan dambe qaatayna waa Ardaqrol oo Cismaankii koowaad aabbihii ahaa. Haddaba marka halka arrin marayso, qabiilkii wuu kala qaybsamay oo qaar waxay la laabteen ninkii ku taliyey in dalkii hooyo loo noqdo, qaybina Ardaqrol bay raaceen oo hayaankii bay sii wadeen, waxayna dhulkaas sida yar ugu tageen dowlad ay ka dhiseen halkaas Turkigii Salaajiqada loo yiqiin oo iyagu qarni ka sii horreeyey. Waxayna la kulmeen muslimiintii Salaajiqada oo dagaal culus kula jira dowladdii Roomaankii Bisantiyiinta. Markaas ayay muslimiintii hoyliyeen oo gaaladii dhabar jebiyeen. Haddaba boqorkii Turkida Salaajiqada ee Calaa'udiin la odhan jiray aad ayuu ugu farxay walaalihiisa ku soo biiray
sidoo kalena hiilka siiyey wuxuuna dhulka siiyey dooxo ku taalla aagga hore ee roomaanka xigay. halkaas ayuuna Ardoqrol ka aasaasay maamul goboleed hoostaga dowladdii Salaajiqada. dabadeedna waxay bilaabeen inay dhulkiisii ballaadhsadaan oo iska sii riixaan Bisantiyiintii, kuwaas oo dhulkaas derisla ahaa. haddaba Turkidii Salaajiqaduna waxay tageen dhulka maanta Turkigu degan yahay ee loo yaqaano oogada Anatoliya ama Aasiyada Yar, qarnigii 11aad ee miilaadiga, iyagoo ka soo guuray dhulka Ciraaq oo dowladda dhexe ay ka jirtay kadib markii ay goobtii dagaalkii Mansigrid ee dowladdii Bisantiyiinta kaga adkaadeen oo ku jebiyeen sannadkii 1071 miilaadiga. dhinaca kale Ardoqrol markii uu geeriyoodayna waxaa xilkii uga hadhay wiilkiisii Cusmaan sannadkii 1281 miilaadiga. cismaan oo talada hayay intii u dhaxaysay 1281 ilaa 1326 miilaadiga, wuxuu bilaabay dadaal xoog leh isagoo diyaarsaday mujaahidiin diinta islaamka lagu ababiyey, qur'aankana la xifdisiiyey. jihaad lixaad leh buuna ku qaaday dowladdii Bisantiyiinta ee deriska la ahayd. durbadiina wuxuu dhisay cudud milatari oo xoog leh. cismaan wuxuu ka xoroobay dowladdii Salaajiqada sannadkii 1299 miilaadiga, kadib markii ay kala burburtay dowladdii Salaajiqada ee ay hoos tegi jireen, sababtoo ah Tataarkii ayaa halkaas ku dilay suldaankii halkaas xukumayay ee la odhan jiray Suldaan Calaa'uddiin Keykubaadkii saddexaad. kadibna waxaa Suldaan Cismaan loo doortay inuu noqdo hoggaamiye. taasina waxay horseeday inay bilaabanto dowladdii Cusmaaniyiinta. waxa uu Suldaan Cismaan samaystay dowlad adag iyo ciidan aad u awood badan, wuxuuna bilaabay halgan adag isagoo ku talagalay inuu buuxiyo meeshii dowladdaasi bannaysay. dhinaca guulihii Cusmaan intii uu talada hayay guulo badan ayuu soo hooyey oo ay ka mid ahaayeen qabsashada qalcadaha Iskashahiir iyo Qarajatulxisaar. kadib wuxuu qabsaday magaalo aad muhiim u ahayd taasoo lagu magacaabi jiray Yinasahiir, taasoo noqotay magaalo madaxdii Cismaaniyiinta sannadkii 1302. dhinaca kale, kadib markii uu si xoog leh uga adkaaday ciidankii Bisantiyiinta meel u dhow Niqiya, Cismaan wuxuu bilaabay inuu dejiyo ciidamadiisa meel u dhow aagaga ay gacanta ku hayaan dowladdii Bisantiyiintu. dhinaca kale, hoggaanka dowladdii Bisantiyiintu wuxuu isku dayey inuu xakameeyo isballaadhinta Cusmaaniyiinta, laakiin dadaalkoodii wuxuu noqday mid dhicisooba. dhanka kale, Cusmaan wuxuu boqortooyadiisii ku ballaadhiyey 2 jiho, dhinaca waqooyi ee webiga Sakaraya iyo dhinaca koonfur galbeed ee badda Marmara. haddaba markii la gaadhay sannadkii 1308 miilaadiga, ayaa Cismaaniyiintu waxay qabsadeen magaalada Efesos, taasoo u dhow badda Ija. Cusmaan ololihii ugu dambeeyey wuxuu ku qaaday dhanka magaalada Bursa, balse isagoo aan weli furan ayuu geeriyooday. markuu Cismaan geeriyooday 1326 miilaadiga, dhulkii boqortooyadii Cismaaniyiintu waxay ahayd 16,000 oo kilomitir square. Cismaanna ugu dambayntii waxaa lagu aasay magaalada Bursa sannadkii 1835 miilaadiga. geeridii Cusmaan kadibna waxaa boqortooyadii la wareegay wiilkiisii Suldaan Orkhan Ghazi binu Cusmaan binu Ardoqrol. waa wiilkii labaad ee Suldaan Cismaan al-Ghazi, aasaasihii boqortooyadii Cusmaaniyiinta. waa suldaankii labaad ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta. wuxuu ku dhashay magaalada Sogod oo ah caasimaddii boqortooyadii Cismaaniyiinta, taasoo aabbihii aasaasay sannadkii 687 ee hijriga, kuna beegan 1281 miilaadiga. wuxuu xukunka la wareegay sannadkii 726 ee hijriga, kuna beegan sannadkii 1326 miilaadiga. dhimashadii aabbihiis kadib, xukunkiisuna wuxuu qaatay muddo 35 sano ah. intii uu xukunka hayay, guulihii uu keenay waxaa ka mid ahaa waxaa loo yaqaanaa aasaasihii dhabta ahaa ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta. wuxuu raacay siyaasaddii aabbihiisa fidinta boqortooyadii Cusmaaniyiinta, taasoo ku fiday dhulal badan oo deris la ahaa. Cusmaaniyiintu waxay furteen Mudanya sannadkii 1321,
markaas oo ahayd markii ugu horraysay ee ay cismaaniyiintu cagaha dhigaan Tarays oo ku taalla koonfurta bari ee Yurub. sidoo kale magaalada Porto City oo istaraatiiji ah iyo gacanka Jimlik oo badda marmara ku yaala waxayna gacanta ku dhigeen sannadkii 1333 miilaadiga dhulka aynu soo sheegnay oo dhan. ugu dambaynna wuxuu furtay magaalada Busra 2 Jamaadul Awal sannadkii 726 ee Hijriga kuna beegan 6 Abriil 1326 miilaadiga. kadib xisaar qaatay muddo 10 sano ah kaasoo soo bilaabmay wakhtigii uu Cismaankii koowaad uu xukunka hayay. wax dhibaato ahna looma geysan dadkeedii kadib markay si soo dhiibeen dowladdii Cusmaaniyiinta. dhinaca kale ninkii haystay magaalada kaasoo lagu magacaabi jiray Amiin Aqlinos wuxuu isi soo dhiibay Orkhan. aakhirkiina Aqlinos wuxuu noqday mid ku islaama dhaqannadii iyo aaminkii Suldaan Orkhan. markii dambena wuxuu ka mid ahaa taliyayaashii waaweynaa ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta. sidoo kalena dhowr taliya oo ka tirsan boqortooyadii Bisandiya ee magaalada joogi jiray ayaa la dhacay shakhsiyadda Suldaan Orkhan. waxay caddeeyeen islaamnimadooda kuna biireen dowladdii Cusmaaniyiinta. boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxaa ka buuxay taliyayaal badan oo cusub kuwaas oo ka tirsanaan jiray dowladdii Roomaanka, kuwaas oo markii ay muslimeenna ka mid noqday kuna bahoobay calanka boqortooyadii Cusmaaniyiinta. markii magaalada Busra la qabtay Orkhan wuxuu u diray ciidan fardooley ah dhanka Bosphorus iyagoo qabsaday magaalooyinka dhinaca xeebta kuwaasoo ay ka talin jirtay dowladdii Bisantiin. haddaba boqorkii Bisantiyiinta ee lagu magacaabi jiray Andronikaskii saddexaad ayaa wuxuu soo urursaday ciidan calooshoodu shaqaystayaal ah waxayna u soo dhaqaaqeen dhinaca Anadol. haddaba markay soo gaadheen goob la yidhaahdo Bilaknon taasoo aan aad uga fogeyn magaalada Askidar ayaa waxaa ku kulmay ciidamadii Orkhan iyo kuwii Bisantiyiinta. dagaalkii goobta Bilaknon ka dhacayna waxaa lagu jebiyey ciidamadii Bisantiyiinta. intaa kadib Andronikas wuxuu dib ugu noqday dhulkiisii oo dagaal dambe kuma soo qaadin dowladdii Cusmaaniyiinta. dagaalkaa kadib magaalada Niqiya ayaa isu soo dhiibtay boqortooyadii Cusmaaniyiinta kadib go'doomin 3 sano ah taas oo soo gabagabowday sannadkii 1331. magaalada Nicomedia oo hadda iyana ah Smith ayaa sidoo kale la qabtay sannadkii 1337 ee Hijriga. isla sannadkii xigay ee 1338 waxaa la qabtay magaalada Iskatari oo hadda ah Iskandar. sidaas daraaddeed badiyaa waqooyi galbeed Anatolia waxay ku jirtay gacanta Cusmaaniyiinta. kadib markii haddaba la gaadhay sannadkii 1345 miilaadiga Cusmaaniyiintu waxay gacanta ku dhigeen Izmir iyo sidoo kale Karaasi iyo dhulka ku xeeranba. intaa waxaa ka dambeeyey 20 sano oo nabadgelyo ah helitaankii Karaasi. muddadan boqortooyada Cusmaaniyiintu waxay si firfircoon ugu howlanayd dhamaystirka xarumaha rayadka iyo militariga, sidoo kale sugidda nidaamka gudaha, aasaasidda iyo dhisidda masaajidada iyo iskuullada, iyo dhammaystirka dhismayaasha dowladda. inta muddadaas laga joogayna wax furasho amuu samayn Suldaan Orkhan marka laga yimaado inuu magaalada Ankara la wareegay sannadkii 1354 ee miilaadiga. dhinaca kale markii la gaadhay sannadkii 1346 miilaadiga isbahaysiga wuxuu dhex maray dowladdii Cusmaaniyiinta iyo dowladdii Bisantiyiinta ee Qustantiniya caasimadda u ahayd, taasoo ka dambaysay markii suldaankii Cusmaaniyiinta Orkhan Qaasi uu guursaday amiirad qoyska boqortooyadii Bisantiyiinta ka dhalatay taasoo la odhan jiray Theodora, aabaheedna la odhan jiray Joonkii 6aad. dhinaca kale sannadkii 1351 ayay ciidankii badda ee Turkigu waxay cagaha dhigeen Tarays iyo jasiirad lamooda Balkaniska iyagoo caawinayay dowladdii Bisantiyiinta, iyagoo duulaankaas wada jirka ah ku jebiyey ciidamadii Serbiya iyo Bulgaariya, iyagoo Turkigu markii ugu horraysay halkaas qalcado ka samaystay. dhinaca kale waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee Suldaan Orkhan qabto waxaa ka mid ah
Orkhan wuxuu abuuray ciidankii ugu horreeyey ee si rasmiya u noqda ciidan joogto ah kaasoo mushahar joogto ah qaadanaya. waayo waqtiyada hore ciidanka waxaa la isugu yeedhi jiray marka jihaad jiro oo keliya, balse isagu wuxuu ku guulaystay inuu dhiso ciidan rasmiya oo si joogto ah mushahar u qaata. sidoo kale wuxuu aasaasay ciidanka inkishaariya. ciidankan waxaa laga soo xulan jiray carruurta muslimiinta ah, weliba waxay u badnaayeen dhulkii la qabsaday dadkii degi jiray oo islaamka si dhaba u qaatay, waxaana lagu ababin jiray barashada diinta. sidoo kale jihaad jacaylka waxa loo samayn jiray taatikooyin kala duwan ayaa la bari jiray, waxaana loo sameeyey xeryo gaara oo lagu barbaariyo, waxaana la bari jiray luuqadda iyo caadooyinka Turkiga iyo mabaadi'da diinta Islaamka. sidoo kale waxay heli jireen tababaro iyo waxbarasho gaar ah ilaa ay ka mid noqdeen qaybihii ugu muhiimsanaa ee ciidamadii Cusmaaniyiinta. maantana halkaa ha inoogu joogto. wassalaamu calaykum.